السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا qaaliga ku soo dhawaada tutorial-keeni computer basic maantana waxaan ku qaadan doonaa haduu Rabbi raali ka noqdo dhowr qodob oo waxa weeyaan muhiim u ah sirinka computerka waxaan ku qaadan doonaa haduu Rabbi raali ka noqdo background color lock screen iyo theming iyo fonts intaas oo waxa weeyaan aan si fiican iskula eegno ayaan maanta cashirkeenu ku saabsanaan doonaa sidoo kale waxa ku saabsanaan doonaa intaas ay ku guda jira sida background-kaaga color-ka uga bedeli lahayd sida background-ka waxa weeyaan markaad screen-ka soo gelaysid aad isagana color-ka uga bedeli lahayd sidaad waxa weeyaan desk bar-kan iyo waxaan la yiraahdo title windows-ka aad color-ka uga bedeli lahayd intaba waynu ku qaadan doonaa haduu Rabbi raali ka noqdo ku soo dhawaada mar kale iyo maadadeeni computer basic marka koowaad markaad rabtid inaad background-kaaga tagtid oo wax ka bedeshid waxaad taabanaysaa marka koowaad waxaad tagaysaa screen-ka meel banaan waxaad ku dhufanaysaa right click kadibna waxaad sii taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay personalizing baad ku sii dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxa ku soo baxaya shaashadan halka waxa ku qoran sidaad kaaga muuqata background waxa ku hoos xiga color lock screen themes fonts intaasan maanta si fiican iskula eegi doonaa waxa ugu horeyn doona background markaad ku dhufatid intana ku soo baxaysa marka ku soo baxdo halkan waxa kugu qoran waa background waa picture-ka halka ku yaala baad waxa weeyaan bedbedelaysaa background-ka picture-ka ku yaala hadaynu rabno inaanu picture ka bedelno kuwan ayaynu dooran karnaa oo wakaas mar labaad wakaas picture-keeni hore ayaa soo baxay loogu saaran tahay sidoo kale kuwan kalena waa dooran karnaa waxa weeyaan waa baalkayn karnaa waxa jira iyaduna wax la yiraahdo background-kaas saddex loo qaybinayaa falaadha yarada qaatid waxa ku soo baxaya saddex qaybood mid waxa weeyaan waa solid color waxa weeyaan waa color baad saaraysaa oo waa solid waxa weeyaan chemistry ayaad ku soo dhigan jirnay waxa adag Soomaa markan waxa weeyaan solid waa wax waxa weeyaan waa adigu solid adigu aad ka mid ah laakiin markan waxa loola jeedaa marka computer-ka la joogo wax kale oo ku qasan ma jirto waxa weeyaan waa color khaliya ama buluug ama cadaan ama madow midku rabo ha ahaaday kan kalena waxa weeyaan split show waxa weeyaan folder oo kugu jira ayaad soo galaysaa background-kaaga markaas marba midba ku soconaya iyagana waa arki doonaa marka koowaad picture-ka horta aynu soo gelin picture-ka halkan ay ku qoran tahay browser ayaad taabanaysaa marka taabatid halkan ayaad meeshu picture-kaagu yaalo ayaad baad tagaysaa kadib markaad tagtid waad dooranaysaa markaad dooratid halkaas aad ka dooranaysaa choice picture markaad kadibna waa uu ku soo baxaya wakaas picture-kaaga halka kugu soo baxay picture-ka soo saartay waxaan la yiraahdo split-kan hadaynu isla eegno isagana waxa weeyaan waa folder waxa weeyaan folder baad ku soo baalkaysanaysaa 30 minute baad sugaysaa bay noqonaysaa folder-kii baan soo gashanaynaa hadda folder-kaas oo kale aan soo gashanay waxaan sugaynaa midkiiba 1 minute marka hadda kamaynu gaarno marka inaynu waxa weeyaan spread-ka doorano hadda color-ka kale markaanu doorano color-ka halkan hoose ay kugu qoran tahay choose filter waxa weeyaan full miyaa la siiyayo gabigiisaba full miyaa laga dhigaa fit isaguna waxa weeyaan waa markaad soo gelisid picture-kaaga oo kale picture-kaagu waxa weeyaan waxyaalo badan buu ka kooban yahay oo kale picture-kaaga marka shaashada oo dhan miyaa lagu fariisiyaa sidoo kale marka lagu fariisinayo waxa la oranayaa stretch baa la oranayaa stretch yani shaashada oo dhan iyo sawirka isqabadsiin oo waxa weeyaan kala dheeraysiin title-na waxa weeyaan waa wax marba in yar kooban oo kale hadda magac oo magacyo isku xigxiga oo kale markaad sameynaysid center-na waxa weeyaan picture-kaaga center-kiisa markaad sameeysid kana expanding-na waxa weeyaan waa gees kamid ah iyo wax saas la mid ah marka picture-kaaga loo sameeyo laga dhigay marka picture-kaaga ayaa gees kamid ah lagu soo qabadsiinaya ama center-ka picture-ka ayaa shaashada lagu soo weynaysiinaya stretch-ka laakiin ugu fiican oo ah sawirka iyo shaashada isqabadsiin yani oo waxba kala dheeraysiin hadaynu color-ka u wareegno color-ka inoo dhiman solid color-ka wakaas cagaar baan doortay cagaarkii baan halkan ka helaya midab kale ka heli maysid
marka waa kaas hadda inagu picture-ka baan iska dooranayna color-ka hadaba aanu wareegno color-kan muxuu faa'iido inoo leeyahay color-kan wuxuu faa'iido inoo leeyahay inaynu wax weeyaan intan option aynu ku sameeyno marka koowaad waxa weeyaan waa inaynu transparency effect aan ku sameeyno oo halkan oo kale hadda cadaan bay noqday soo maartid hadda kale cagaarkaas midabka cagaarka ayaynu dooranaynaa midabka cagaarka markaynu doorano inaynu halkan effect yar baa gelayo soo maartid effectiga hore markaan ka tirno oo kaas effectigaas halkan inta weeyaan sirinka iyo wax sida halkana start iyo text part-ga weeyaan anagsha waa line-kan dheer markaad color-ka ka bedelaysid line-kan dheer color-kiisa hadda waa madow soo baxa markaynu ku dhufano wuxuu isku bedelayaa cagaar iyo midabkan doorano oo halka ka doorano midabadaas waa dooranaysaa midabkaana rabtid hadaadan ku arkin halkan ay tagaysaa calaamada plus-ka waa ku soo darsanaysaa hadda kale title bar of Windows waa kee title bar Windows waa halkaas sare ay ku qoran tahay file computer iyo view-gaas oo kale baa waxay noqonaysaa color hadda fiir markaynu taabano wakaas inta ka sareysa weeyaan baa leeyahay PC this PC meesha ku qoran tahay minimum-ka iyo close-ka iyo meelaha ay calaamadaha isku sooran weeyaan halkan hoosena waxa ku qoran light iyo dark waa habeenkii iyo maalinta markaad isticmaalayso hadda maalin baan isticmaalaynaa light way dark markaan isticmaalno sidaas ayuu midoobaanayaa gabigiisiba laakiin se waxa jira Telegram-ku midoobaan maayo Telegram-ku waad aragtaan Telegram-ku waxaad sameynaysaa halkan calaamada tagaysaa halkan hoosaad isagana taabanaysaa meesha ku qoran tahay night mode wakaas halkaas ayuu sidaas kugu baalkeenay laakiin se isagana saasaad u midoobeynaysaa waxa jira dad badan oo application-nada markay kan weyn midoobeysiyaan habeenkii madow ka dhigaan application-nadu u midoobaan application-naduna waxay wataan default gaar ah oo iyagu ay wataan oo light iyo night iyo dark wataan hadaynu log screen-ka u gudubno log screen-ku waa halkan waa shaashada picture-ka ugu saaran picture-ka hadda saddex option baad dooranaysaa waa inaad picture adigu aad soo gashataa oo shaashada ku saarno iyo sidii kale folder-kii show-ga ahaa slide show oo marba mid yar ku wadeeyay inaad soo doortid kan sare oo isaguna Windows Explode marka aad khadku ku furan yahay ayuu isbedbedelayaa oo Windows-ka sawiro ama picture oo isaga u kaydsan ayuu ku baalkanaya koona waxa weeyaan waa application-nada shaashada saaran sida clock saacad oo kale application-nada rabtid inaad saacad saaratid shaashada saaratid markaad internet-ka furaysid laptop-ka oo kale baad saaran kartaa kan halkan waxa ku qoran Cortana log screen waa Cortanaha markii aad la hadlaysid Cortana waxa weeyaan waa voice cod baad kula hadlaysaa laptop oo kale waa application Windows kala socda waa kaas halkaas kaaga muuqda marka waad la hadlaysaa xaruunaysaa hi Cortana open the computer waa ka furaya markaas wuxuu ku leeyahay waxaad sheegtaa log sheeg markaas aad ku sheegaysaa logaygu waa intaas oo English kaliya ayaa ku record gareysan luqad kale kuma record gareysna sida Soomaaliga oo kale halkana waa screen template setting oo isaguna waxa weeyaan template out waqti iyo wax saas ku siinaya markuu damayo kale iyo markuu daarmayo kale iyo bay ku siinayaan ajageen dib u laabanayna kan ugu dambeeyana waa screen saver setting markaad save gareynaysid setting kan oo kale markaad save gareynaysid markaad wax ka bedbedelayna save gareysid damiska ku saaray damisku muxuu yahay damisku waxa weeyaan waa halkan waxyaalahan ku yaala waa kala aad hadda waxa weeyaan save gareystaaniga hadda kan wuxuu leeyahay save gareysno kuma save gareysna waa markaad color-ka ka bedbedelaysid hadda markaan menu-ga taabto color-kaas cagaarka ayaa soo baxaya soo maaragtid laakiin kan markaan geysto oo kan doorto waxay soo baxaya color blue-ga oo waa special waa color-kiisi kan waxa ku soo baxaya color-kaas aad arkaysaan oo ah orange-ga iyo wax saasa kana waxay soo baxaya markaan geysto color basaliya marka color-daas waa themes waa color ku kaydsan font-ga ayaa ugu dambeysay waxaan isla eegi doonaa font-gu waa farta marka laptop-ka ku soo baxayo kale font-ga aad dooranaysid hadda anigu font bay dooran waa font-ga default-ga hadii laakiin se font-ga ay ka xumaato halkan u bad ka raadinaysaa default ayaa u baad leedahay default hadda ma aqaan wax ku dhacay
default ayaa waxa weeyaan waa font default laakiinse fontiga aad jeceshahay ayaad adigu halkan uun ka dooranaysaa ta ku qancisa ayaad ka dooranaysaa kadibna waad ku save garaysanaysaa shamarti halkanna waxa weeyaan waad ka soo download garaysanaysaa fontiga aad rabtid calaamadda yar halka download fonti marka maanta cashirkeena intaas ayaynu ku soo qaadanaynaa hadduu rabbi raali ka noqdo oo ah screenka sida wax looga bedbedelo shaashada backgroundka iyo waxaasoo dhan sida kaladhada looga bedelo intaasaan ku joojinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu